munaasabadan Ciidul Adha ee ay jaaliyada Soomaaliyeed iyo jaaliyadaha kale ku wada tukadeen magaalada Johannesburg ayaa waxa laga jeediyay khudbado kala duwan oo ay afafkooda ku jeedinayeen jaaliyadaha ka wada qayb galayay waxaana sanad walba suurta geliya in hal goob lagu wada tukado golaha culimada Soomaaliyeed ee Albayaan ee dalka Koonfur Afrika. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. gudashada salaada ciida kadib ayaan waxaan fursadaha salaamaha iyo hambaliyada TV-ga SBC ee Koonfur Afrika siinay dadweynihii ka soo qayb galay salaada ciida waxayna guud ahaan hambaliyada iyo salaamaha la wadaageen ehladooda iyo asxaabtooda kala nool dunida dacaladeeda. bismillahir rahmanir rahiim ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair ciidan ciideeda kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabad iyo barwaaqo nagu gaarsiiyo waxaan halkan ka ciida uga hambalyeynaya dadka muslimiinta dhamaantood meel walba ay ka joogaan adduunka dhamaan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta dhamaanteed meel kasta ay joogto gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda ka soo jeeda Soomaali weyn meel kasta ay joogto ayaan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh malabaad waxaan salaamayaa hooyadii aad u jecel Xalimo Cabbaas inta ku nool magaalada Gaalkacyo waxaan jecelahay inaan salaan iyo ciid wanaagsan u diro ugu horeyn ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan ummadda Soomaaliyeed sidoo kale waxaan jecelahay inaan salaan kaliya laaba salaada Ciidul Adha ee sanadkan insha Allah taala u diro walaalahay iyo waalidiinta meel kasta ay joogaan ciideeda kale nabad iyo barwaaqo qaasatan waxaan si qaas u salaamayaa familkayga oo ku nool Muqdisho Mareykan Gaalkacyo gobolada dhexe waxaan leeyahay ciid mubaarak qaasatan taas waxaan halkan ugu salaamaa hooyada aan aad u jecelahay Faatimo Faarax Xasan oo ku nool xaafadda Hurwa qaballah minna al-a'maal salaamina baada TV-ga markuwaad markay waxaan salaamayna waalidiinteena meel kasta ay joogaan dhamaan Soomaalida muslimiinta ciid mubaarak alayna السلام عليكم مقعي ونجم محمد عبد الله وحا أولا وحا محسن إلهي سبحانه وتعالى وماشي نقول مية ثانية عيد وحا لي مسلمين تميلوا بيكو عيد أيام كل عام وأنتم بخير وحا هالكان كسلامة يا دمان أصحاب أهلدا وحا سلامة يا ولا شيء أمان محمد عبد الله وحا سلامة يا أبي محمد عبد الله ولالك يا محمد عبد الله وحا سلامة يا دمان انتي مقالكيga muuqaalkayga taqaano waxaan salaamayaa macallimiinta oo ku sugan Koonfur Afrika dhamaantood magacooda ma sheegi karo waxaan leeyahay muslimiinta kullu caam oo antu bixay aygu wadaay Ibrahim Maxamed ciid mubaarak baan leeyahay dhamaan my family my friend all ciyaalkii oo jooga Hargeysa meesha la yiraahdo Pennsylvania oo USA tuulada la yiraahdo Erie dhamaan iyo waxaan salaamayaa hooyaday Raxmo Sheekh Maxamed aabe Ali Maxamed iyo dhamaan walaalahay waxaan leeyahay ciid mubaarak dhamaan iyo ummadda Soomaaliyeed ummadda Islaamka oo dhan dhamaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bixir si gaar ahaaneed waxaan rabaa inaan u salaamo familkayga aan ku bilaabo hooyaday Ruqiya Cabdulajiiso iyo walaalahay oo aan magacyadooda inta aan ku soo koobi karin ugu horeyso ururda aabay iyo hooyaday Xamdi Ismaan Axmed Abdullaah Ismaan Axmed أحمد إسمان أحمد إسمان أحمد سعيد إسمان علي إسمان أحمد يو يرانك أبيه سعيد إسمان أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان مسلمين وحن سلامية عليا كل عام وأنتم بخير ملك السعود جوان عقل والكان كسلامية أهلدي قرايبدي وعليا عيد وناكسن عيد مبارك عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلمين تأردن وحن دعينا إن إلهي سبحانه وتعالى تذكر الحرين هي إنه نقدر دونك دعالة دي سكارهان صومالي ده كارهان مسلمين تكونوا الكونفور أفريقيا ما دام أي عيد وينيد أي تهاي مسلمين ترى إيمان تعيديان السلام يا والدين تي وملك الدول جورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وقراش الشيخ محمود وكنا القبل كساوث أفريقيا كارهان مقالة بريتوريا halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday macaan Kaamila Xaashim Maxamuud ku nool wadanka Kenya gaar ahaan Gaaris walaashay Kowsar Sheekh Maxamuud ku nool magaalada Nairobi walaashay Markaba Sheekh Maxamuud ku nool magaalada Gaaris walaalkay Diiriya Sheekh Maxamuud ku nool magaalada Gaaris
habaryaashay ehelkayga aabahay oo ku nool shaqada cidda ku nool magaalada gobolka Bangaasa halka taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal ilaahay anaga Allah baagsan ciidda madxiyada halkan uga taanideynaa dhammaan ummadda muslimiinta waxaan uga mahadcelinayaa gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ilaahay qalbigooda ha mideeyo waxaan ka salaamayaa family qaraabada waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay inka aqbalo camalka wanaagsan iyada sameeysan waxaan dhammaan u tahniyadeynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u rajaynayaa isku duubni iyo isku xidhnaan magacaygu waa Sultan Ibrahim Maxamed Ali waxaan ku magac dheerahay Ibrahim Qaxwo waxaan meesha ka salaamayaa familkeyga iyo Soomaali iyo muslimiinta oo dhan ciid wanaagsan aan leeyahay waxaan kaloo meesha kaga faa'iideysanayaa dowladda madaxda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay jidka ay iska dhaafaan dadka Soomaaliyeed waa dhibaataysan meel kasta ku dhaw sida ka soo qaad anagoo South Africa joogna aadan ugu dhibaataysan waxaan sugnaa dowladda magacaygu waa Cabdullaahi Cabdi Xasan waxaan ku magac dheerahay Xarbi anoo ku hadlaya magaca dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda islaamka meel kasta oo ay joogtaan ciid mubaarak gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo Soomaaliya kaga nooshiin ciid mubaarak maalinta farxadeed ee ciidda dhammaan waxaan salaamayaa ehladayda iyo qaraabadayda oo ku nool qaarkood aad sabab joogaan qaar ay Soomaaliya joogaan iyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed magacayga Cabdinaasir Yuusuf Sheekh waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan ciid mubaarak waxaan ka salaamayaa dhammaan qaraabada inta muuqaalkayga taqaano salaamayaa dhammaan shaqaalaha SBC gaar ahaan saxibkii maadastila dhammaan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair ciid wanaagsan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair ummadda muslimiinta meel walba joogaan dhammaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak waxaan halkan ka salaamayaa reer Cabdiqaadir iyo waxaan halkan ka salaamayaa reer Xaawa Caraaye familkayga dhammaan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo TV-ga shaqaalaha SBC bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh anigoo ah magacayga Cabdiqaadir Cali Shariif waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed maadaama ay tahay maalin farxada waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan ciidul adha waxaan halkan kaloo ka salaamayaa hooyadeeda qaaliga ah Asmi Xuseen iyo aabahayga qaaliga ah Cali Shariif iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo walaalahayga dhammaan meel walba ay joogaan waxaan leeyahay magacayga Cabdisaaq Cabdi waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta Soomaalida meel ay joogaan khaasatan waxaan salaamayaa reer Puntland waxaan salaamayaa gobolka Bari Highland iyo Sanaag waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidda kale Allah ina gaarsiiyo waxaan kaloo si khaas u salaamayaa hooyaday Saynab Saciid Maxamuud Yuusuf aabahay Axmed Cabdi Hala walaalahay dhammaan bismillaahir rahmaanir rahiim ummadda Soomaaliyeed ayaa salaamayaa meel walba khaasatan hooyaday aabahay Faaduma Xushaan aabahay Xusaan Cabdi Gaab anigoo heesigi baaba imaamka salaada ciidda tujinayay Sheekh Cali Tawxiid oo aan salaada kadib fursad u siinay inuu hambalyo iyo salaan u diro ehladiisa ayaa guud ahaan u rajeeyay muslimiinta in Ilaahay ka aqbalo gudashada acmaasha xajka maanta oo yawm al-hajj al-akbar acmaasha ugu badan ee xajka ay gudanayaan Ilaahay waxaan leenahay ka aqbalo rajayda iyagoo nabad qaba oo guuleystay oo ajarkii helay oo noqday sidii qof maanta oo kale dhashay dunuubtoodii la meeray Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo celiyo waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta qaraabadayda iyo ehelkayga meel walba ay joogaan ayaan salaamayaa hooyaday walaalahay adduunka meel walba ay joogaan iyo dhammaan muslimiinta waxaan si gaar ah u sii salaamayaa reer South Africa dhammaantood meel walba ay gobolada ka joogaan waxaan salaamayaa oo kale reer Johannesburg jazaakumullahu khayran baan leeyahay ciid wanaagsan ku ciida munaasabadan ciid Carafa awgeed ayaa waxa wadooyinka magaalada Johannesburg lagu arkay muslimiin badan oo iskugu hambalyeynayay fadliga maalintan qiimaha badan waxa sidoo kale jiray goobo lagu iibinayay xoolaha nool si loogu udxiyeysto Mahad Maxamed Sheekh SBC TV Johannesburg Koonfur Afrika